بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درسينا maanta wuxuu ka hadlayaa الصحابية الجليلة واحدة من أمهات المسلمين ومن أجلاء الصحابيات المحدثة العالمة العاقلة أم سلمة. أم سلمة هند عفوا. maanta waxaa ka hadlaynaa umu salama, saxaabiya aljaliila. magaceedu waa hind, laakiin naaneysta ka xoog badatay, saas darteed umu salama aad loogu yaqaanaa. hinda waxaa ka dheeraaday oo ka xoog batay kunyadeedii iyo waxaa weeye naaneysteedii. gabadhan saxaabiyad qiimo badan waayo umu salama. subxaanallah, saxaabiyaalka kulluhum waa jecelnahay ridwaanullaahi calayhim wa ardaahum, laakiin fii shakhsiyati ana umu salama saameyn xoog badan ay igu leedahay. umu salama wa umu sulaym wa khadiija wa caaisha, afartaas saxaabiyaad subxaanallah alcadiim noloshayda waxaa weeye saameyn badan iyo taariikho badan ay ku leeyihiin. wa saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kulluhum waa jecelnahay, kulluhumna duruus cajiibaan ka baranaa. laakiin markaa saxaabada baranaysid subxaanallah qof aad ku sii tacalluqaysaa. umu salama min haula. umu salama umu salama wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiiyey maa umu salama. umu salama waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey. markaan umu salama kelmad laga hormariyey iima qoraayo, ma aqaadi inuu idiin qoraayo in kale. kitaabka saxaabi kastaa kelmad baa lagu bilaabi jiray. cafwan, laakiin umu salama kelmad lagu bilaabayo inta kuma qorna. umu salama wamaa adraaka maa umu salama. umu salama maxaa ka taqaanaa? umu salama maxaa ka taqaanaa? tashwiiq waa. wamaa adraaka waxaa waaye waa lagu xiise gelinayaa. intaa horta umu salama lagaaga hadlin yay tahaa laguu sheegaa. ama abuuha aabbaheed, marka ha isku qaldina umu salama iyo umu sulaym. yaa banaad, umu salama iyo umu sulaym ha isku qaldina. umu sulaym waa gabar ansaariyad ah, kitaab yaraanba ka soo dhiganay. umu salama laakiin waa gabar muhaajiriyad ah oo ummahaatulmu'miniin ka mid ah, caasaska nebiga ka mid ah calayhi salaatu wassalaam. marka makee ka timid. umu sulaymna reer madiina waayo. umu sulaym nebiga habreer camal ay ugu aadisanayd, laakiin umu salama nebiga xaaskiisay ahayd. umu salama wamaa adraaka maxaa ka taqaanaa maa umu salama. ama abuuha aabbaheed fasayidun waa ugaas iyo madax oo min saadaati makhzuumin, qabiilka makhzuum la dhaho ugaasyadooda ka mid ah. almarmuuqiina ee la tilmaamo, ugaasyada la tilmaamo ka mid ah ayuu ahaa. jawaadun waa geesi oo min ajwaadil carabi, waa deeqsi. jawaadun waa deeqsi oo min ajwaadil carabi, carab deeqsiyaalkeeda ka mid ah. almacduudiina ee la tiriyo, deeqsi hebel 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 intaasaa ka deeqsiya marka la leeyahay. umu salama aabaheed deeqsiyaal la tiriyuu ku jiray. xataa inahu ilaa umu salama aabaheed kaana wuxuu ahaa yuqaalu lahu mid la dhaho, waxaa lagu naanaysi jiray zaaduraakibi, kii safarka ahaa saahidiisa. naanaystiisaaba taas aheedbo.
حتى إنه أسوء كان وحوها يقال له مثل وده زاد الراكب كي مسافر كهاس هيديس سمحا لو دهي لأن محايل الركبان مسافرين كانت وحيها لا تتزود مدان سهي سوق هذا إذا قصدت مركة سوء هذه منازله حافظيس أو صارت أما أي سعوته في صحبته لجركيس إن كانوا ديقسيها لأوكي meeshuu degan yahay marka loo soo socdobo musaafiriinta sahay ma soo qaadanayaan ama haddii asaga safarka iskula jiraanne sahay ma soo qaadanayaan xoolihiisa le la wada isticmaalaa lianna rukbana maxaa yeele musaafiriintu kaanad waxay ahaayeen laa tatasawadu midaan sahay qaadanin idaa qasadad marka ay soo aadayso manaasilahu guryihiisa oo saarad ama ay soconayso fii suxbatihi waxaa weeye asaga la jirkiisa wa amaa zawjuhaa ninkeeda ma tahay ninkeedu waa fa cabdullaahi ibnu cabdilasad cabdullaahi ibnu cabdilasad waaye axadulcasharati tobankii mid ka mid ah asaabiqiina usoo hormaray ilal islaam cabdullaahi ibnu cabdilasad nebiga walaale iskugu aadisnaayeen oo akhuu rasuulilaahi biradaaca waaye nebiga naasay isla nuugeen dhanka kalena cabdullaahi bin cabdilasad waxaa dhashay nebiga eedadii oo marka eedooyinkiisa safiya leh kasoo islaamta laakiin eeddo kalaa jirto oo la dhihi jira barra binta cabdilmutalib aa dhashay cabdullaahi bin cabdilasad marka cabdullaahi dhinacna wuxuu ka yahay nebiga eedadiisaa dhashay dhinacna nebiga walaaley ka yihiin oo naaska isla nugeen axadulcasharati tobankii mid ka mid ah waaye asaabiqiina u horumaray ilal islaami islaamnimada id lam yuslim maba uusan islaamin qablahu asaga hortii ilaa waxaa islaamoo keliya abubakrin asidiiq iyo wa nafarun tiro oo qaliilun yar oo laa yabluqu aan gaaraynin haddii la tiriyo asaabical yadayni labada gacmood farahooda cadadan xagga tirada abubakar koox yaroo haddii waa la tirinaa la dhaho labada gacmo farahooda aan gaaraynin labada gacmo farahooda marka meeqa waaye waa toban farood waxaan toban gaaraynin ha ka horreeyaa layidhi ninkeedana ninka tartaa buu ahaa dagaalkii wuxuu ku soo dhaawacmi doonaa kadibna dhaawiciisu u dhiman doonaa wa amaa ismuhaa magaceeda ma tahay gabadhan hindun hindaa la dhahaa magac miskiin lagama aha magaceeda hindaa la yidhaah laakinaha hase ahaatee kunniyad waxaa loogu kuniyey biummi salama salamo hooyadii salamo wiilkoodii yaraa la dhihi jiray suma markaas kadibna qalabad waxaa ka kormartay calayhaa magacii alkunyata kunyadiyaa ka kormartay magacii maxaa ka kormaray kunyadii aa ka kormartay ayib allaahuma acina intaa marka waxaa lagugu sheegay maniga umu salama hadda waxaa lagaaga sheekeynaa se usoo islaamtay aslamad umu salama waxay lasoo islaamtay maca zawjihaa ninkeeda lasoo islaamtay haddana ninkeeda lasoo islaamtana waxaa ka dareemaysaa fakaanad ayadu iyo ayadu alukhraa sidoo kale waxay ka mid ahayd min asaabiqaati kuwa hormar ilal islaami islaamnimada aydan sidoo kale adaal waxaa lagu dhahay ninkeeda cabdullaahi bin cabdilasad tobankii islaamnimada ugu horreeya ku jiray iidana maadaama ninkeeda lasoo islaamtay dadka ugu horreeya islaamay ku jirtay aslamad umu salama maca zawjihaa ninkeeda la islaamtay fakaanad waxay ahayd hiya iyadu alukhraa ee kale min asaabiqaati kuwa u hormaray ilal islaami islaamnimada aydan sidoo kale wamaa inshaaca markuu soo ifbaxay naba-u islaami umu salama warka islaamitaankeeda markuu soo shacbaxay ayada iyo wasawjuhaa ninkeedaba xataa haajad way kacday quraysh way kacday wamaajad wayna isdhex qaaday war iyo yaab iyo isku diraalnimo iyo cadaab ay qorsheenaana isla dhex qaaday xataa haajad qurayshu wamaajad wajacalad waxayna bilowday quraysh tasubu inay ku shubayso calayhimaa labadooda labadee waaye umu salama iyo abuu salama waxay ku shubaysay min nikaaliha ciqaabteeday ku shubaysay waa ciqaabaysay
maa wax ayay ku shubaysay yusalzilu gilgilaayo assumma midka dhagaha la assilaaba ee adag midka dhagaha la ee adag hoos wuxuu kugu fasiray inay tahay asukhuur alqaasiya yacni dhagaxaanta ad adag dhagax maantana haddaa la hadlaysa ma ku maqlaamayaa dhagaxo walaalow see tahay hadday tiraa ku maqli maayo dayib haddaa taabatid oo feer istiraadidna gacantaa ku jabayso asumma silaab saasaa loogu bixiyey marka waxay marka cadaabayeen cadaab oo haddii dhagaxaas lala aadi lahaa uu la gilgilon lahaa cadaab yar maahaneed marka subxaanallah af carabiga mucjisooyin badan uu leeyahay hadda wuxuu rabaa inuu kuu tusaaleeyo oo maskaxdaada aa ka fikirtid cadaabka labadan qof la cadaabaya tusaaluhu bixi marka waxay ahayd dhagax adag oo dhagala oo asagana adag oo wax maqlaynin oo adeeg keliya ah haddii cadaabkaa loo bandhigi lahaa dhagaxa waa gilgili lahaa cadaabkaasi u dareeya dara alle bis ada marka wax iska faham waay ayagoo saa loo cadaabay fajacalad waxay bilowday tasubu calayhimaa inay ku shubayso min nikaalihaa ciqaabteeda maa wax yusalzilu gilgilinayo asumma kan dhagala assilaaba ee adag waa dhagaxii iyo dhagaxii adkaa waaye falam yadcufaa ma aysan tabar daraynin walam yahinaa mana aysan daciifin dacfi iyo wahanku waa isleeyihiin iska egdhow yihiin madow carabiga qani ah moogi oo soomaali waa daciif iyo tabar darri waaye walam yataraddadaa mana aysan shakinin oo mare aysan labalabaynin taradudku waa diintaasaa laydinkugu dhammaynayo walaalayaalow sax miya eeboyaalow sax miya mise sax maaha waxaas dhamma gelin ma aysan daciifin walama shadda markuu ku adkaaday calayhimaa dushooda al adaa dhibka wa aadina ugu idmay alrasuulu rasuulka salawaatullaahi calayhi liasxaabihi asxaabtiisa bilhijrati inay u hijroodaan ila alxabashati xabashi inay aadaan markii loo fasaxay oo layidhi xabashi aada waxaa jooga boqor aan agtiisa dadka lagu dulminin saa markuu nebiga yidhi kaanaa labadooda waxay ahaayeen labadee umu salama iyo abu salama kaanaa labadooda waxay ahaayeen fii taliicati almuhaajiriin muhaajiriinta horraantoodii bay ahaayeen daliicada waxaa weeye dadka ugu horhoreeya waay labadooda marka waxay ka mid ahaayeen muhaajiriintii dadkii ugu horhoreeyey ayay ka mid ahaayeen waay macnaha ayib madad umu salama way tagta iyadii iyo wasawjuhaa ninkeediiba waxay aadeen ilaa diyaari lqurbati dhulkii qurbo waa meel kastoo deegaankaada aan ahayn qurbo waay wakhallafad waxay uga tagta waraahaa gadaasheedana waxay uga tagta fii makata maka dhexdeeda waxay uga tagta beytahaa gurigeediibay ka tagta gurigeedii albaadikha ee sarreeye dheeraa gurigeedii sarreeyey ka tagta wacizahaa sharafteediibay ka tagta ashaamikha ee dheeraaye adkaa sharafteedii adkayd dheerdheereed ee magaca iyo mansabka ahaydna waa ka tagtay wa nasabahaad abtirkeediibay ka tagtay iyo dadka isku qabiilka ahaayeen alcariiqa ee asalka ahaa abtirkeedii asalka ahaana waa ka tagtay meel xabashi joogtay aado xataa isku kalar aysan ahayn aadi saas dhan maxay u samaynaysaa muxtasibatan way xisaabsanaysaa daalika arrinkaa kulluhu dhammaantiiba acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim cafwan xabiibaati muxtasibatan way xisaabsanaysaa daalika arrintaa kullahu dhammaantii cinda allaahi ilaah agtiisa ay ka xisaabsanaysaa mustaqilatan waxaasoo dhan way yaraysanaysaa lahu arrinkaasay yaraysanaysaa fii jambi marka loo fiiriyo mardaatihi ilaahay raalli ahaanshihiisa ilaahay raalli ahaanshihiisa marka loo fiiriyo magaaladaadii gurigaadii abtirkaadii qaraabadaadii waxaasoo dhan wax yaray kula noqaayaan ilaahay raalli ahaanshihiisa wax kasta ka weyn allaahuma fdaa cannaa yaa rab ilaahu raalli naga noqo nabi muuse calayhi salaam min aayaati alqur'aan allatii aharatnii kathiiran ay ka mid tahay aayadan nabi muuse calayhi salaam markii la yidhi iman soo wad oo qoomkaada ka tirsan adigana imow waa kasoo hormaray asi ilaahay buu u imaaday waa la weydiiyey wamaa acjalaka can qowmika yaa muusaa
nebi muuse oo tolkaa maxaa kaa soo dedejiyey intaa lasoo orda waay waxaad lasoo carare waxaa lasoo carare jawaabtuu dhahay waa jawaab cajiib ahayd wacajiltu ilayka rabbi litardaa buu yiri ilaahu waa kuu soo cararo kuu soo degdegay litardaa saa raalliga noqotid ilaahay inuu raalli kaa noqdo marka wax la siisan karo iyo wax goyn karo male ilaahay raalli kaa noqday waa ahjanatee ogow ilaahu raalli kaa noqday qabrigaada ku waasaco ogow ilaahu raalli kaa noqday oo camalkaada iyo howlaha haysa raalli ka noqday adduunkaada aakhiradaada kuu toosaysee day ilaahay cidduu raalli ka noqday isagana ayagana ay raalli ka noqdeen jannay leeyihiine day marka ilaahay inuu raalli kaa noqdo wax sahlan maahan saxaabaduna si ilaahay uu raalli uga noqdo ayay waxay bixiyeen daxu alghaali wannafiis wax kastoo qaaliyo naftooda ay kow ka tahayba waa quureen waxayna u quureen wacajiltu ilayka rabbi litardaa waa macnaha marka waxaa laga rabaa salaadu carar camalka wanaagsan oo carar qur-aanka u carar war maxaa la siinaya wacajiltu ilayka rabbi litardaa ilaah inaa raalli iga noqotid maalintuu ilaah raalli kaa noqdona wax kaa halaawayo ma lah yaa rabbi irda cana yaa rabbi ilaahu naga raalli wacala raqmi ayadoo ay jirto mimaa wixii laqiyathu ay la kulantay umu salama iyo wasaxbuhaa maaragta dadkii la socdayba wixii ay la kulmeen oo min ximaayati najaashi ilaalintiisa ah nadara allaahu ilaahay ha nuuriye filjannati jannada wajha wejigiisa ilaahay ha ka nuuriye iyadoo halahaasoo dhan ay jirto haddana faqad kaana wuxuu ahaa ashawqu xiiso ay qabaan ilaa makata mako oo mahbatal waxyiga meeshuu kusoo degaye walxaniinu iyo jacaylka iyo xiisaha ay u qaba ilaa rasuulillaahi oo masdar alhudaa hanuunka isheedii ah yafri wuxuu jeexayay kabidahaa beerkeeda wa kabida zawjiha ninkeeda beerkiisa ayuu jeexaya faryan jeexid meesha waxaa lagu dhahay dadkan xabashida meel waxay ku heleen deegaan iyo ilaalay ku heleen ayagoo ilaaladaas helay haddana xiisihii ay maka u qabeen kama dhammaanin qofka si kastoo adduunyada jannadeeda la geliyo meeshuu ku dhashay ama ku koray ee ku soo barbaaray ee xasuusaha waaweyn uu leeyahay ma ilaabayo wacala rumi ayaday jirto mimaa wixii laqiyatu umu salama ay la kulantay iyo saxbuhaa oo min ximaayati najaashi ilaalintiisa ah nadara allaahu ilaahi ha ku nuuriyo filjannati jannada wajha weye faqad kaana haddana wuxuu ahaa ashawqu xiiso iyo jacayl ilaa makata maka loo qabo mahbita waxyiga meeshuu kusoo hoobanaye walxaniinu iyo xiiso loo qabo ilaa rasuulillahi rasuulka alle masdar alhuda hanuunka ishiisa ah labadaaba waxay ahaayeen xiisaha ay maka u qabaan xiisaha ay nebiga u qabaanba wuxuu ahaa yufri kabidaha mid beerkeeda jeexaya iyo wa kabida zawjiha ninkeeda beerkiisa jeexaya baryan jeexid marka beer jeexaya maxaa laga wadaa beerka dhinacmeed xataa waa dhahdaad macnaha jacaylka iyo xiisaha ay qabaan darteeda beerka la dilaacmay waa macnaha beerkii oo ruruna u dilaacmay ma laga wadayaa qalbigay kama xoogaa qalbigoodiiba makuu soo aaday waay qalbigii dhan mako nabi maxamed waay maana beerkoodiyaa jeexjeexmay ma laga wado bastracture markaas kadibna tatacad waxaa israacday al akhbaaru ayagoo xabasho iska joogo aa war imaaday marka markaas kadib tataabacdu waxay isku soo raaracday al akhbaaru wararkii calal muhaajiriinta iska soo raacraacday waraa iska soo raacraacay warkaas maxaa waaye oo ilaa arda xabashada ku jiray waraa soo gaargaaray warkaas maxaa waaye warka gadaaluu been ka noqon doonaa laakiin warka waxaa waaye biana acuudu billaah biana muslimiintu oo fii makata magaalada maka joogay qad kahura wuu batay cadaduhum tiradoodii waa badatay warkaasaa soo gaaray warka waxaa soo gaaray ah war ma ogdiin miyaa maya muslimiintii maka joogtay qad kahura cadaduhum tiradoodii waa batay koow wa anna islaama xamsata ibni cabdilmutalib xamse soo islaamitaankiisa iyo cumar ibnu khadaabne qad shadda wuxuu adkeeyey min asrihim awoodoodii cumar iyo xamse markay soo islaameenna islaamka awooddiisii adkaatay wakafa weyne ka celisay arrintaasi shay-an wax oo min adaa qurayshin quraysh dhibkay dhibi jirtay canhum ayaga xaggooda
dhibkay dhiibi jirtana waa ka yaraaday markii xadi iyo cumar ay islaameen. warkaasaa gaaray. facasama waxay go'aansadeen fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ah cala alcuudati inay usoo noqdaan ilaa makata maka inay usoo noqdaan yaxduuhum ayaga oo uu soo kaxaynayo oo soo dhaqaajinayo ashawqu jacayl wayadcuuhum ayaga oo u yeerayo alxaniinu xiise iyo jaceela soo wado nabigay jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam xaqa alxubbi ay jeclaayeen. fakaanad umu salama waxay ka mid ahayd marka ayada iyo wa zawjuhaa ninkeedaba fii taliicati alcaa'idiin kuwii soo noqday dadkii ugu horhoreeyey. hadaalana maxay ahaayeen fii taliicati almuhaajiriin kasii horna maxay ahaayeen bisaabiqiina ila alislaam. meel kasta marka kooway ka yihiin mujeedidahi umu salame iyo abu salame meel kasta kooway ka yihiin. nasiib dara laakiin hase ahaatee sarcaana maktashafa waxaa degdegtay maa inta iktashafa ay ogaadeen alcaa'iduuna kuwa soo noqday waxay ogaadeen annamaa numiya wixii loo soo sheegay ilayhim ayaga xaggooda oo min akhbaarin warar ah kaana inuu ahaa mubaalaqan mid lagu xeel dheeraaday fiihi dhexdiisa mid laga badbadiyey. mubaalaq waxaa waaya mid laga badbadiyey warkina soo gaaray waa laga badbadiyey dheheen. wa ana alwathbata bootintii allatii taasoo wathabaha almuslimuuna muslimiintu ay boodeen bacda islaam xamsata wa cumar qad quubilat min qurayshin quraysh waxay kala hortimid bihajmatin duulaan oo akbara maaragtay weyn. bootinta waxaa la wada yacni waxay ka soo boodeen min alkufri waxay soo boodeen ila alislaam. sidoo kale markay islaameenna waatay saxaabada ku dheheen wasaf aan samayno saf uu cumar wato iyo saf uu xamse wato. bootintaas marka waxayba keentayba dagaal kalo hor leh cadaab kalo hor lehay keentay. faftanna almushrikuuna mushrikiintu waxay ku sii fidnoobeen oo ku sii xeel dheeraadeen fii tacdiibi almuslimiina muslimiinta inay cadaabaan wa tarwiicihim muslimiinta inay cabsi geliyaan wa adaaquuhum inay dhadhansiiyaan min ba'sihim dhibkooda inay ka dhadhansiiyaan maa cahda lahum waxaysan u arkin bihi isaga min qablu horay waxaysan hore u arkin oo kalaa la dhadhansiiye muslimiinta. haddaa idinkugu darantahaa la yidhi masaakiintan marka waa soo noqdeen markay soo noqdeenna warkii beenuu noqday. cinda daalika marka hijradii koowaad waxaa waye hijratul xabashati luulaa. cinda daalika markaa agteeda marka adina rasuulu rasuulka wuxuu u fasaxay salawaatullaahi calayhi liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu u fasaxay bilhijrati inay u hijroodaan ila almadiinati madiine inay aadaan tookadan muddo kadib waa umu salame abu salama markay xabashi ka imaadeen ooba aysan iska noqoninba makadooda iska joogeen. muddo markay kasoo wareegatay nebigu wuxuu u fasaxay bilhijrati ila almadiina. facazamad waxay go'aansatay umu salama iyo wasawjuhaa ninkeedana waa sidii mar kasta lagu yaqaanay calaa an yakuuna inay noqdaan awala almuhaajiriin muhaajiriinta ugu horreysay inay noqdaan. maxay la hijroonayaan firaaran ayakoo la cararayo bidiinimaa diintooda wa takhallusan ayakoo ka takhallusayo oo ka fakanayo min adaa qurayshin quraysh dhibkeeda. firaaran ayakoo la cararayo bidiinihimaa diintooda wa takhallusan iyo ayakoo ka takhallusayo min adaa qurayshin quraysh dhibkeeda. laakiin hase ahaatee hijrat umu salama wa zawjahaa waa meesha marka meesha darsiga uu noogu jiro. umu salama hijradeeda iyo ninkeedaba lam takun sahlatan ma aysan fududayn muyasaratan mid fudud ma ahayn kamaa khuyila sida loo malaynayo lahumaa labadooda sida labadooda loo malaynayo wax fudud ma ahayn wallaahi bilaah. wa inamaa hase ahaatee kaanad waxay ahayd shaaqatan mid dhib badan muratan haddana qaraar. markay maka madiine aadayeen taariikh ah qabsatay labadan qofood umu salama iyo abu salama shaaqatan ayay ahayd mid adag oo haddana oo dhib badan oo haddana muratan qaraar ayay ahayd. khallafad waxay uga tagtay waraaha gadaasheeda waxay uga tagtay maasaatan dhibaato duunu ay yaraanayso duunaha sokadeeda kulla maasaatin dhib kasto dhibaato dhib kasta loo fiiriyo dhibka uu yaraanayo ayay ka tagtay. tahuunu ay yaraanayso duunaha ayada sokadeeda kulla maasaatin dhib kasto. warkaana ku jeclaha mogtaa shiiqa wuxuu yidhi bal natruk aan uga tag alkalaama hadalka aan uga tagno liummi salamata ummi salama aan u dhaafno si ay noogu wariso qisata ma'saatiha qisada dhibkeeda. umu salama kaale noo wari walaalay
maxaa yeele fa shucuuruhaa umu salamo dareenkeeda oo bihaa qisada ay u dareen qabtaa ashaddu umuna waa umu salama bihaa ayaa ashaddu adag wa acmaqu xeel dheer dareenka iyada ay dareemaysa markay qisada ka sheekeynayso bismillah waa mid xeel dheer waay sideedana qisaska qofka sheegaa waxay qofka kale uga dhaadhici karaan qofkan sheegaya markay qisada soo qabsato ee uu dareenkiisa ka hadlayo hadda isa meel ku qoran oo kale haddaa aqrinaysid waxaa laga yaabaa aqris qalalan inaa aqriyaysid laakiin qofka markuu dareenkiisa ka hadlaayo oo waxaa weeye qisadiina asaga ay qabsatay qisadaa ku soconaysa umu salamaha nooga sheekaysa marka fa shucuuruhaa maxaa yeele umu salamo dareenkeeda bihaa qisada ay u qabto ayaa ashaddu daran u acmaqu xeel dheer wa taswiiruhaa sawirideeda lahaa qisada ay noo sawiraysa ayaa adaqu aad iyo aad u fog wa ablagu u xeel dheer adaqu waxaa waye waa daqiiq waay waa mid daqiiq ahoo lagu faryaraystay wa ablagu u xeel dheer qaalad umu salama waxay tiri markii qisada iidaa noo warinayso lamaa goortii cazama uu go-aansaday abu salama markuu go-aansaday cala alkhuruuji inuu baxo ila almadiinati magaalada madiina inuu baxo markuu go-aansaday acadda lii wuxuu ii diyaariyey baciir neef geel ah oo inuu de nin waaye cunugiisi iyo islaantiisu wadanaa mogtahay neef geeluu diyaarsaday marka neef geelah ayuu diyaarsaday haye kadibna sidee buu yeelay marka uma markaas kadibna xamalanii waa igu qaaday calayhi neefku igu qaaday wajacala wuxuuna dhigay tiflanaa salamata wiilkeenna salama ah fii xijri dhabtuu ii saaray salamana dhabtuu ii saaray anna geelku ii saaray wamadaa uuna nala socday yaquudu asagoo nagu hogaaminaya binaa annaga albaciira geelka anigu koraan ka kora tiri salamana korkaa lii saaray tiri wabacdeenne asagana geelkii buu xiriga ka qabtay uuna wadaabay tiri huwa asagoo laa yalwi aan milicsanaynin oon fiirinaynin calaa shayin wax kaleba ma fiirsanayo wax kalena ma sugooyo waay wa qabla an nafsila can makata maka intaanan ka bixin bay tiri meeshaana dhib ka qabsanaa mogti maka intaanan ka bixin ra'aana waxaana arkay bay tiri rijaalun rag oo min qowmi qabiilkayga ka tirsan banii maqsuum qabiilkayga banii maqsuum ka tirsanaana arkay fatasaduu lanaa wayn hor istaageen horteenna istaageen wa qaaluu liabii salamana waxay ku dhaheen in kunta adiga haddaad tahay qad qalabtanaa mid nooga adkaaday calaa nafsika naftaada mid nooga adkaadoo naftaada naga ceshtay oo naftaada naga wadanooya haddaad tahay amaa baalu imra'atik naagtaada xaalkeeda maxaa waaye haadihii tan ah gabadhaanaa wadatid xaalkeeda soo noqoa adi haddaa naftaada la baxsatay gabadhaan xaalkeeda soo noqoa wahiya bintunaa gabadheenna waaye gabadha anakee naga dhalatay facalaama natrukuka maxaan kaaga tegaynaa oo ta'khuduhaa midna aad nooga qaadanaysaa oo watasiiru bihaa aad ula soconaysaa filbilaadi magaalooyinka bal noo sheeg niyahow gabadha reer banu maqsuumay gabadheena waa maadoo iska wadwadatidaan kaa muku dhaafeenaahe dheheen markii gabadheena aa iska wadwadatidi muku dhaafeenaahe dheheen muku dhaafeen waa u dhaarooyin macnaha facalaama natrukuka maxaan kaaga tagnaabay dheheen ta'khuduhaa midna oo nooga qaadanaya gabadha watasiiru bihaa filbilaadi aa magaalooyinkan ula socsoconeen uma markaas kadibna wathabuu way ku boodeen calayhi abuusalamay ku boodeen neefkii geelu watay ku boodeen wantasacuunii minhu wayna iga siibeen intizaac way iga soo siibteen waa asaga xaggiisa intizaacan siibasho oo geedkii markay ku boodeen ani iga soo jiiteen neefkii marka gabadheena noo dhaafay dhaheen wamaa in ra'aahum markay arkeen qowmu zawjii ninkayga qilkiisa banuu cabdil asad waaye ya'khuduunanii tolkaygoo isii wato ana aniga iyo watifli cunugaygii salama ah xataa qadibuu way caroodeen ashadda alqadabi caratii u darnayday caroodeen faqaaluu waxayna dhaheen laa wallaahi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaya maya laa natruku uga tegi mayno alwalada cunuga cinda saaxibatikum gabadhiinaan bacda an intasactumuuha kadib markaad ka siibateen ood ka wadateen min saaxibinaa wiilkeenna intizaacan siibasho haa waxay dhaheen aqligiina wiilkeenna naagtiisa ka wadateen cunugaanna waa ku darseesiin miya idin dhaafeena dheheen laa natruku lwalada cunuga uma daynayno cinda saaxibatikum islaantiina bacda an intasactumuuha kadib markaad kasoo siibateen oo kasoo wadateen
min saaxiibinaa wiilkeenna intisaaca siibasho fa huwa cunugaa yariiskee ibnunaa wiilkeenna waa ku nagu abtirsada mogdow naagta reer bani maqsuumeed ku abtirsane salmaan waa reer bani cabdilasad wiilkeenna waaye wanaxnu owlaa bihi annagaana ku habboon annagaa wadanaynay dhaheen waaye uma markaas kadibna tafiquu waxay bilaabeen yatajaadabuuna inay kala jiidanayaan طفل يريسكي سلامها بالأرق والكالجينو يا ثم مرس كتبنا طفقوه وحي بلابن يتجاذبون إني كالجيدنا يان طفل سلامة ويلكي سلامها أي كالجيدنو بينهم أيها دحضوضة أي كالجيدنو على مشهد مني أنا أجد ترى أنا أجد على مشهد مني حوى أنا أجد أركاي حتى خلعوا إلهي كالسيبين يده قعنتي سيسي كوانا جيدنا قعنتي يا كالجيبنتي إلا فيه إلا عنق ريس وهي مسكين فأخذوه وانا وطين عنق سلامها وطين يا وطي رير بني عبد الأسد وعنق أبهض وكذا شيء وطي أعوذ بالله رير كموجة لوكا الجيمرك عنقي رير بني عبد الأسد بدي رير بني مخزوم أطيقي مدينو سوء واكل هذا عدي واكل هذا وفي لحظات بيتر أم سلمة ورك إذا نوض موقته وفي لحظات بيتر مدير البرقسير قذوه ذا وجدت نفسي نفتي دان هلي بيتري ممزقة الشمل أيضا كون كذي لكلا جاحي ومحلوة شمل محلوة أنا عنقي إنك ضد كلانسان أو اجتماع سن أو هالقويسي هاي قويسكي والا كلا طوري ممزقة والا كلا جاحي الشمل كلان كان qoyskeeni waa la kala jaxay waxiita waxaa is arkay tiraano kaligeey fariida oo hadana kaligeey isku macno waaye kaligeey anoo soo taagana is arkay tiri nin ma leh cunug ma leh fazawji ninkaygu itajaha wuxuu aaday ila madiinati madiinu aaday firaaran sala cararaay bidiini diintiis iyo naftiisa tiri ninka waa cararay tiri naftiisu la cararay madiinu aaday diintiisu la cararay haye وولدي ويلكيغان اختطفه وحاطفان بنو عبد الأسد غير بنو عبد الأسد ضفان من بين يدي قعمه كدودي كضفان محطما أسوه أحمد بربرسن مهيصا أسوه أحمد نيجبسن يعني مهيص ومكسر قف جبسن نيجبسن وهذانا محطم أوه بربرسن أيه وطين بربرسن حلو عنو كده وتجويها ملقوا نيد آني قبيها بربرسن إذن أما أنا ترى أنيقة فقد استولى علي وحائي هستو قومي بني مخزوم طلق رير بني مخزوم هستيتري فجعلوني وحين إدقان بيتري عندهم أكتو ذي إدقان هاي أنا كان الجوغي إدقان قبريه أنا كان قدلت ففرق يتري مركا والك لقيا يتري وقال عبادس ففرق والك لقيا بيني أنيقة إيوه وبين زوجي نينكيغا إيوه وبين ابني ويلكيغا في ساعة ترى الله أكبر ساعة قدهد أني إنك يعنقي نلو كلا طوريتي وحا صودن دين تلي أمرو سايدي ومنذ ذلك اليوم ما لنتا لغا صوب بالله تري جعلت وحانا هاي تري أخرج ميد أصوب حدا كل غدات وحكست إلى الأبط بنانك يبعادك أصوب حجريتي أجلس وافريسين جريتري في المكان ماشي يا فريسين جريتري الذي كاسو شيد كدعد ما ساتي دواتدي قارت ماشي كدعد أفريسين جريتري حيقبا مرك وأستعيد وحن دب أسوع عشان جريتري صورة اللحظات حليضي التي تاسو حيل فيها نالكالجي بيني أني وبين ولدي ويلكي وزوجي نينكي اللحظات كي دقيقة ذي أنا إنكي ويلكي لكلكي أدب أسوع عشان تري عنجل عمل دي أسوع عشان تري ماشي أصوفر يساهي تري وأظل وحنا بالله تري أبكينا إسكو هنا حتى يخيم علي إلى إدبولي تري الليل هبين صباح صباح البرنامج أصوفر يستوسي إسكو هينيس هبينك يا جو كلها ويا عنقي كلا قلبي كلا بركيسا كمقن نينكي وشيسا كمقن ليش إسكو هينايتر سبحان الله وبقيت وأنا أهابي تري على ذلك حالة أسنى كسبنا سنة تري كوارنا سنة
أو قريبا أما وح أدو من سند أما سند وح أدو أساس هاي تري إلى أن مر بي إلى وصامر بيتري رجل نين أو من بني عمي المأذرتي نين المأذرتي سو أجمري تري وإيجا بيتري فرق واجلع بيتري لحالي حالة ديدو قلبي جلع بيتري ورحمني وأنا إن حرست بيتري وقال نينكي وحكويري لبني قومي تلكيغا وحكويري قبيل كيغا ألا تطلقون ما إسكسي ديسين هذا المسكين قوضا مسكين ما إسكسي ديسين فرقت بواكل جيسين بينها أيضا إيو وبين زوجها نينك هذا إيو وبين ولدها المه هذا ما إسكسي ديسين مسكين تام وما زال كما وسنسولين بيتر نينكي بهم أيغا يستالين إنو جلعين أي قلوبهم قلب يضو ويستدر وسماركتي وماركتي soo daadinayo cadfahum wayastadiru marka uu raadinayo dheh cadfahum naxariistooda dareenkooda ayuu raadinayo xataa qaaluu li ilaahay ugu dhaheen ilxaqii bizawjiki ninkaada haleel inshiiti haddaa rabtid ninkaada haleelay ugu dhaheen walaakin hase ahaatee kayfa lii an alxaqa seen ku haleelaa bizawjii ninkaygoo filmadiinati madiina joogo wa atruka aan uga tagaa waladii ilmahayga iyo wafildata kabidii beerkayga kala barkiis fildadu waa qidca waa beerkayga gobol ka mid ah waa ilmaha yarkaa dhashay se uga tagaa bay tiri fii makata makase uga tagaa cinda bani cabdilasad reer bani cabdilasad agtooda ma uga tegi karaahay tiri wiilkayga adikayga madiinaba aadi kariya tiri wiilkaygana ciddaas ma uga tegi karin kayfa yumkinu say igu suurtagale an tahda allihii inay ii degto كيف يمكن شيء كيف يمكن شيء يقول تقال سابت أن تهدى لي إن يقدك أنا لو عطنا عبسية إن يقدك أو ترقى أما أي كدن لعيني إيش إذا غبرة إلين إن إيش إذا كرمات أما عبسية يقدك يقدك تري وأنا في دار الهجرة مدينة جو وولد الصغير ويلكي غيرنا في مكة ومكة جو سيوديها تري أنا مدينة هدا آدي wiilkaygan uma ka joogo ilin se iiga joogsahay cabsina se iiga degay tiri laa acrifu xaalan ka ogeyn canhu xaggiisa shay-an waxba waraa way arkeen bay tiri bacdu naasi dadka qaaraa waxay arkeen maa u caaliju wax aan ka cabanayo oo waxaan la dhibtoonayo oo min axzaani wa ashjaani rugteyda iyo ciilkayga iyo dhibaatadeeda ah فرقت ويؤجل على قلوبهم قلبيضهم لحالي حالكي أجل علي وكلموا ويلها اللين بني عبد الأسد لها اللين في شأن أردت ذلك لها اللين واستعطفوهم وين ما ركتي وين نحريس توضا أي كدالبادين واستعطفوهم نحريس يدرين إنا إيه نحريستان أي كدالبادين علي أني كوركي إنا إيه نحريستان أي كدالبادين qoomkii kale u tageen gaa miskiinta ah wareersan sanadka ooyeysa bacaadkaas fayso ilaahay ka cabsada wiilkooda ilaahay ma yaqaaniina macnaha cunugeeda siiya waa qalbigeedii waa wadnaheedii wastacdafuuhu marka waxaa waye naxariisay ka dalbadeen calaya aniga ay ii naxariistaan faradduu lii waxay ii soo celiyeen waladii salama wiilkayga salamay ii soo celiyeen alxamdulilah reerkii hadda waaba isku soo noqon rabaaba salamadiisaa loo soo celiyey umu salamana waa la sii daayey laakiin umu salame keligeed saajidka ku soo mari doontaa yaase soo wadi doona madiinase see ku imaan doontaa hadday imaata xaalkeedu see buu noqon doonaa fi darsi alqaadim aan ku dhiganayna insha allah